caabuqa corona ama loo soo gaabiyey covid-19 waxa uu hadda saamayn ku yeeshay dadkii adduunka ku noolaa in ka badan 600 oo kun oo qof. dadka u naf waayey cudurkan waxa ay kor u dhaafeen 30 kun oo qof waqtiga haddaan idinla hadlayo oo ku kala nool daafaha adduunka. haddaba haddii aad dareento calaamadahan xumad aad u sarraysa, qufac qalalan, cuna xanuun, madax xanuun ama qandho daran kolba kii aad u taqaan, 4 calaamadood haddii aad isku aragto fadlan joog guriga ama la xidhiidh dhakhtar caafimaad. ha u qaadan jujuub, keliya ilaali naftaada. mar kasta maydh gacmahaaga, isticmaal xidhashada qalabka afka ee loo yaqaan face mask. ka taxaddar xidhiidhka dadka u buka xanuunkan. afka xidh oo ku qabo gacanta marka aad qufacayso. middase ugu muhiimsan waa inaad joogto gurigaaga, sida oo kale masaafo u jirso dadka ama bulshada aad la nooshahay.